ciidankan oo isku dhaf ah isla markaana ka kooban booliis loo tababaray deegaanka Soomaalida iyo booliis federaal ah oo tababarka Leyli booliis ku qaadanayay muddo 6 bilood ah kulliyadda tababarka booliiska dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa xafladii qalinjabinta ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar komishineerka komishinka booliiska federaalka Itoobiya General Dambalash Gabar Makail hogaanka nabadgelyada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mubashir Dibad Raage komishineerka komishinka booliiska deegaanka Soomaalida Sareeyo Guud Maxamed Cali Xasan mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer deegaan iyo marti sharaf kale mas'uuliyiinta ayaa markay soo galeen kulliyadda tababarka waxay salaan sharafeed ka qaateen ciidan loogu diyaariyay kadinka kore ee kulliyadda intaas kadibna mas'uuliyiintu waxay kormeereen goobaha uu tababarku ciidanka booliisku ku qaadanayay oo ay diyaar ku ahaayeen askar ka mid ah booliiska tababarka dhameystay waxayna u soo bandhigeen madaxda carbiskii ay barteen sida xabad ridka birakaboodka iyo dhammaan tababaradii ay qaateen booliiskan isku dhafka ah ee tababarka ku dhameystay kulliyadda tababarka booliiska deegaanka Soomaalida ayaa noqonaya federaalka dufcadii 12aad halka deegaanka Soomaalidana ay noqonayaan dufcadii 13aad waxayna sidoo kale soo bandhigeen gaardika ciyaar ay salaan sharafeed ku salaamayeen madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo madaxdii kale ee weerinaysay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa xafladan qalinjabinta ee lagu soo xulay booliiska tababarka dhameystay soo xidhay booliiska maanta qalinjabiye dhamaantiin marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan ee maanta aad maarad ku soo bandhigteen wixii aad barateen intii aad ku jirteen tababarka waxa maanta tababarka loo soo xidhay ciidanka federaalka booliiska federaalka xubno ka tirsan iyo ilaa 400 oo ka tirsan ciidan ka booliiska deegaanka Soomaalida oo gaar ahaan loo tababaray magaalada Jigjiga waa markii ugu horeysay tababar isku dhafan ay bartaan ciidanka booliiska federaalka iyo deegaanka Soomaalidu taas waxay keenaysaa in cilmi dheeraad iyo aqoon dheeraad maadaama tababaryaal heer sare oo federaal ay joogeen ay qaadato dulfadani waxay tababaranaysay muddo ka badan kuwii hore oo ah ilaa iyo 7 bilood waxay barteen oo kaliya ma ahayn shaqada booliiska laakiin haddii loo baahdana inay noqon karaan booliis dagaalama oo maaragtay mission ka balaaran kii booliiska fulin kara ahaan baa loo tababaray waxaan markaa aad iyo aad ugu boorinayaa dhammaantood cashiradii maanta meeshan ay ku barteen si dhaqso in natiijada loo arko oo tababarkii ay qaataan ay ku ladhaan akhlaaq iyo wadaniyad inay muujiyaan maanta booliiska halkan ku tababaranaya federal booliiska hawlaha uu ka hayo dalku isbedelkii kadib si balaaran ayay u kaceen runtii bandhig had sabaan kaga qayb galay u dambeeyay cuduudda iyo casriyeynta ka socota hay'adda federal booliisku waa mid ka balaaran kuwii 30 sanadood TPLF ay waday kuwa ka balaaran runtii weeyaan marka isbedelka federal booliiska ka muuqda inuu deegaanka naga soo gaadho dhanka tababarka dhanka teknolojiyadda dhanka maaragtay logistiga dhan walba isbedel balaaran oo ka muuqda anaga inuu soo gaaro waan rabnaa tababarka noocan inuu naga caawinaya ana aad iyo aad ugu mahadnaqaya dhammaan intii ka qayb qaadatay in tababarkan maanta uu ka hirgalo deegaanka waxaan insha Allah diyaarinaynaa in magaalooyinka kale magaalada Jigjiga ciidanka maanta la tababaray Jigjiga ka howlgalayaan laakiin in magaalooyinka kalena iyaguna ay soo diyaariyaan ciidamadii loo tababari lahaa si ducfad kasta oo federal police oo la soo xareeyo loogu daro kuwa ka tirsan deegaanka oo la tababarto si loogu daro marka qorshahaas aan qaadan doonaa hadii la yiraahdo
waxaan mar kale idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin waa maalintii farxadiina qalinjabinta hambalyo waad mahadsantihiin komishineerka komishinka booliska federaalka Itoobiya oo munaasabadaasi qalinjabinta ciidanka booliska khudbad ka jeediyay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa ክቡራትና ክቡራን የዛሬው ክብር እንግዳ የዛሬ ተመራቂ ወጣት ፖሊስ ኦፊሰሮች ሀገራችን ኢትዮጵያ ትላልቅ ስኬቶችን ያስመዘገበችበት mudanayaal iyo murwooyin martideena maanta qalinjabiyaasha saraakiisha booliska ciidankan booliska ee qalin jabinaya waxay ku soo hagaageen waqti ay dalkeena ka hana qaadeen guulo aad u waaweyn oo la taaban karo gaar ahaan waqti diyaar garow loogu jiro in biyo xidheenka weyn ee Abay wareegii saddexaad biyaha lagu leexiyo iyo waqti ay dalkeena ka muuqdaan maalgashiyo iyo horumar aan horay loo arag taasi cagsigeedana waa waqti ay cadowga dalkeenu adeegsanayaan awoodooda tii ugu dambeysay si ay dalkeena uga fuliyaan ficilo foolxun soo kale waa xilli cadowgu shacabka aan waxba galabsan naftooda u halaago si ay dib u dhac u keenaan biyo xidheenka taasi oo ah mid aan dhacaynin si kastaba ha ahaatee waxaan ugu baaqayaa ciidanka booliska ee federaalka iyo kuwa deegaanka Soomaalida ee qaatay tababarka ciidanimo ee ku filan soona gaaray maalintani maanta ah in ay qayb libaax ka qaataan sugidda amniga wadankooda iyo soo kale ka hortagida cadowga wadanka ku soo duulay waxa kale oo ugu baaqayaa kuliyadda tababarka booliska ee federaalka in ay sii balaariso geedi socodka tababarada ee ay ka wado deegaanada dalka midaasi oo ah mid lama huraan u ah higsiga iyo horumar ee uu dalku higsanayo ugu dambeynna waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa dawladda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyo madaxweynaha iyo kabinetkiisa shacabka deegaanka iyo komishinka booliska deegaanka Soomaalida oo gacan weyn ka geysay in shaqadan ballaaran ee maanta inoo muuqatay halkan soo gaadho noqotona mid midhal ah ugu dambeynna komishineerka komishinka booliska dawladda deegaanka Soomaalida Sareeyo Guud Maxamed Cali Xasan oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri የስልጠና መርሃ ግብር ከወትሮ ለየት የሚያደርገው ስልጠና በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስና የክልላችን ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ የተሰጠ በስልጠና የተገኙ ውጤቶች ሁሉ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ tababarkani maanta waxa uu kaga duwan yahay tababaradii hore waa mid ay si wada jir ah isaga kaashadeen kuliyadda tababarka booliska federaalka iyo dawladda deegaanka Soomaalidu waxaana tababarka gacan buuxda ka geystay kuliyadda tababarada booliska federaalka 400 oo xubnood ayaana lagu guuleystay in loo fidiyo tababar isku dheelitiran kuwaas oo ka tirsanaan doona ciidanka booliska deegaanka Soomaalida tanina waxay wax weyn ka bedelaysaa cududda hay'adaha ammaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaanan codsanayaa in naloo sii balaariyo tababarkan noocan oo kala ah si ay u sinaadaan cududda hay'adaha ammaanka ee aan haysano iyo ballarka dhulka deegaanka Soomaalida sidoo kale buunbuunin ma noqonayso haddii aan dhahno shaqadani sida wada jirka ah loo qabtay maadaama ay tahay mid sii kobcinaysa isku xidhnaanshaha booliska federaalka iyo ka deegaanka Soomaalida waa in ay deegaanada kale ee dalkuna tusaale ahaan u qaataan gabagabadii waxaan idin leeyahay hambalyo waxaanan si gaar ah ugu mahadcelinayaa tababarayaasha iyo tababartayaasha sida dulqaadku ku dheehan yahay uga qayb qaatay tababarkani maalintani maanta ana soo gaadhay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo komishineerka booliska federaalka ayaa abaalmarino guddoonsiiyay kuliyadda tababarka booliska dawladda deegaanka Soomaalida iyo komishinka booliska deegaanka Soomaalida oo kaalin mug leh ku lahaa tababarista ciidankan sidoo kalena waxa madasha lagu abaalmariyay ciidanka tababarka qaatay xubnihii ugu firfircoona